maanta isugu nimaadno kulankii saddexaad ee golaha dhaqaalaha qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aad muhiim u ah oo dalka dib u habeyntiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikir iyo maskax dhaqaalayahanka kala duwan marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay'adaha dawladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaan hadhow waxaan soo markii ugu horeysay aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan ku soo dhigtay doodaheeda ku soo bandhigtay dhinacyada dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amni aanu jira haynin haddii aanu dhaqaale jirin iyo wax soo saar dawladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jira haynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kala degdeg ah ee loo baahnaa suurtagali maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale siyaasadii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwan aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtagalayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dawladnimo ee jira iyo siyaasadeed dalkaasi leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtagalayaa hay'ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaaran ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aad maanta iyo bari iyo saadamba ka doodi doontaan dhowrka cisho shirkani jiro waxa ay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheena u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan doorkana waa muhiim markaan mowduuca eegay dib u habeynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaa